badana dadku waxay rumaysan yihiin haddii aragtida indhuhu ay hoos u dhacdo inaan dib loo soo celin karin iyadoo ay ugu wacan tahay daada ama xanuunada indhaha. dhab ahaantii qaab nololeedka qofka ayaa hoos u dhigi kara dhibaatooyinkaas. daraasad ayaa muujisay in waxtarka nafaqooyinka qaar laga helo cuntada sida zinc, kubar, vitamin C, vitamin E iyo beta carotene ay yareyn karaan khatarta daada la xidhiidha ee caafimaadka indhaha 25%. waxaynu soo gudbin doonaa tirooyin cunto ah oo laga helo nafaqeeyaal sare u qaadi kara caafimaadka indhaha iyo aragtida. kalluunka waa in qani ku ah omega 3 fatty acids. saliidda kalluunka ayaa mid ku jirta dheef mareenka iyo nudaha kalluunka. daraasado ayaa muujiyay in duxda kalluunka ama malayga ay dib u soo celiso indhaha qalalan taasoo xal u ah indhaha aan soo saarin ilinta oo indhaha qashinka ka saarta jishana jeermiska indhaha. badanaa indha qaleelka waxaa sababa daawashada badan ee mobilka, kombiyuutarka iyo tiifiyada. lowska sidoo kale lowsku wuxuu qani ku yahay omega 3 fatty acids. waxaa kale oo laga helay xaddi aad u sarreeya oo ah vitamin E kan oo ka hortaga dhaawacyada daada la xidhiidha ee indhaha. khudradda gaar ahaan midhaha la cuno waxaa ku badan vitamin C sidoo kale vitamin E. vitamin C-gu waa antioxidants waxa uu ka ilaaliyaa indhaha dhaawacyada sida kadaada iyo kuwa kaleba. vitamin C-ga midhaha qaniga ku ah waxaa ka mid ah liin dhanaanta, liin macaanta iyo canabka. kaarotadu waxay qani ku tahay oo laga helaa vitamin A iyo beta carotene. waxay midabka hurdiga ama jaallaha siisaa kaarotada. vitamin A waxay door muhiim ka ciyaartaa aragga. waxa uu ka mid yahay borotiinada sida rhodopsin kan oo ka caawiya retinada qaybta aragga isha qaabilsan inay nuugto iftiinka ama ilayska. baaritaano ayaa hoosta ka xariiqay in beta carotene uu jirku u baahan yahay nafaqeeyaan si loo sameeyo vitamin A. hilibka lo'da waxaa ku badan macdanta zinc. waxaa lala xidhiidhinayay inuu u fiican yahay waqti dheer badqabka indhaha. zinc wuxuu ka caawiyaa indhaha inaanay kusoo degdegin cudurrada daciifiya aragtida indhaha iyo kuwa da'da lala xidhiidhiyo. hilibka digaaga ayaa sida oo kale laga helaa zinc balse waa mid ka yar xaddi ahaan kan laga helo hilibka lo'da. beedka ama ukunta dhab ahaantii beedka ama ukuntu waa il weyn oo laga helo borotiino sida leontin iyo zeaxanthin. waxay hoos u dhigaan indha la'aanta iyo aragtida oo yaraata. beedka sidoo kale waxaa laga helaa fitamiinada sida vitamin C iyo vitamin E iyo macdanta zinc oo waxtar weyn u leh caafimaadka iyo badqabka indhaha. biyaha yaanay la yaab kugu noqonin, dareeruhu waa u muhiim nolosha sidoo kale waa u lagama maarmaan caafimaadka indhaha. cabitaan badan oo biyaha wuxuu ka hortagaa fuuqbaxa waxaana hoos u dhigan calaamadaha ama astaamaha indhaha qalalan.